kulanti wacan oo wanaagsan dadka aan daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo aan si toos ah idinka soo gudbinayno studio-heena ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka barnaamijkan kooban daawadayaal ee idinku soo fool leh ayaa waxa aan kaga hadli doonaa dhibaatada ay leedahay in dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminaan in markasta ay gacanta horsadaan oo ay beesha caalamka ay ku hadaqaan ama halqabsi ay ka dhigtaan dib kasta iyo abaar kasta oo soo gaadha in qayladaan ay ku dhuftaan ay markaasi beesha caalamka weydiisanayaan in gargaar la siiyo haddaba beesha caalamka maxay iyada lafteedu dana oo ugu jira gargaarka iyo masaacidooyinka ay dadka baahan u geeyaan waan iyana laga fikiro dhinaca kale bal waxa iyagana faa'iido ugu jira dad inta cabanaya in gacanta wax loo saaro in gargaar la gaarsiiyo sidaan ognahay daawadayaal ama sida caadada ah hay'adaha gargaarka bixiya ama masaacidooyinku waxa ay gargaar bini'aadanimo u fidiyaan inta badan dadka ku waxyeelooba daadadka fatahaada biyaha dhulgariirka abaarta iyo waliba masiibooyinka dabiiciga ah waxyaabaha ay keenaan waxa kale oo ay gargaar ay u fidiyaan oo ay gaarsiiyaan dadka ku waxyeelooba ee ka soo qaxa marka ay dagaalo dhacaan haddaba ma aha in hay'adahaasi ay gargaar dadka gaarsiiyaan waxay adduunyada gaarsiiyaan wararka dadkaasi gargaarka u baahan ee ku waxyeeloobay masiibooyinkaasi dabiiciga ah ee ay wax gaarsiiyeen ama wax gaarsiiyaan waxay u dan leeyihiin in markaasi wararkaasi oo u badan sawirro iyo fiidiyoyaal in dadkii gargaarka loo geeyay oo gacanta loo saarayo wixii la siiyay ee loogu yaboohay in markaasi ay sawirro ka qaadaan oo ay caalamka ku faafiyaan hay'adahaasi waxay iyagu dhinacooda leeyihiin waxaanu sawirradaasi iyo fiidiyoyaashaasi u qaadnay in dadkii dhaqaalahaasi ku yaboohay ee soo ururiyay in ay arkaan in dadkii xaqa u lahaa ee raashinka iyo gargaarka nolol ku dhiibay in aanu si toosa u gaarsiinay oo aanan leexsan haddaba qiso ayaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal ka dhacday waqooyiga caasimadda Suudaan ee Khartoum tuulo ku taala halkaasi ayaa sida aad wararkaba kula socoteen waxa ka dhacay maalmihii u dambeeyay ama toddobaadyadii u dambeeyay fatahaad iyo daadad xoog leh oo geystay khasaare mood iyo noolba leh gobolka lagu magacaabo Jazeera ayaa tuuladaasi ay ka tirsan tahay waxaana gaaray dhibaato iyo khasaare burbur hanti dadeed iyo waliba xoolo iyo dad fara badan oo daadadkaasi ay waxyeeleeyeen ama ay qaadeen qaarkood dawladda Suudaan ayaa daawadayaal markaasi qayladaan ku dhufatay oo adduunyada ka codsatay in loo gurmado tuulooyinkaasi iyo deegaanadaasi daadadku ay qaadeen ee dhibaatadu ay ka taagan tahay iyadoo markaasi cunto yari laga soo sheegay oo dadkaasi wax oona iyo ay markaasi waayeen waxa haddaba gargaarkii ugu horeeyay ka soo jawaabay jimciyad ka tirsan wadanka Saudi Arabia oo tuuladaasi diyaarada ku geeyay gargaar aad u ballaaran oo markaasi loo baahiyay ay doonayaan in ay u qaybiyaan qoysaskii ku waxyeeloobay dhibaatooyinkaasi haddaba maxaa dhacay intaasi kadib raashinkii markii dhulkii la dhigay ee la goglay ee loo qaybiyay qoys xisaabtii ee dadkii loo yeeray ayaa dadkii ay diideen iyagoo isku duuban oo ay yiraahdeen gargaarkan iyo masaacidadan ma rabno mana qaadanayno ee dib loogu celiyo dadkii soo dhiibay ee Saudi Arabia waa maxay sababtu waxa weeye markii jimciyadaasi ama hay'adaasi samafalka ee gargaarkaasi waday ee Saudi Arabia ka soo qaaday ay dadkii tuulada ka codsadeen in qof kasta oo raashinka qaadaya ama qaadanaya in hay'adu ay isla sawirto isagoo markaasi raashinkii qaadanaya oo gacantiisa ay soo gashay qoysaskii ayaa markaasi sawiradaasi iyo fiidiyoyaashaasi diiday oo ku gacan sayray oo yiri haddii aad si daacada
oo lilaahinimo aad noo siinaysaanna ahlan wa sahlan haddii sawirro iyo video aad doonaysaan in aad adduunyada ku baahisaanna waxay noqonaysaa istusnimo annaguna ma doonayno in sawirrada qoysaskayaga iyo haweenkayaga in dibadda lasoo dhigo oo la gudbiyo nin ka mida dadkii ama afhayeenkii dadkaasi u hadlayay ayaa waxa uu yidhi tani waa musaacido ka timid waddanka Sacuudi Arabiya kuna wajahnayd dadkii ku waxyeeloobay fatahaadii biyaha iyo daadadka iyo roobabkii laxaadka lahaa ee ka da'ay gaar ahaan gobolkaasi Jazeera hase yeeshee annagu raashinkaasi iyo cuntadaasi qaadan mayno ee loo celiyo dadkii ay ka timid afhayeenkaasi wuxuu intaasi ku sii daray waxa uu yidhi waa ihaano in qoysaskeena sawirro laga qaado waanuna diidnay in sawirradaasi haweenka iyo ciyaalkayga laga qaado oo loo gudbiyo caalamka iyo adduunweynaha dadka haddaba tuuladaasi ka soo jeeda waqooyiga caasimadda Khartoum ee Suudaan waxa ay eegayeen karaamadooda iyo sharaftooda in aan markaasi iyaga oo la quursanayo oo aragtidooda in raashinta gacanta loo saaro la sawiro oo dibadda la geeyo oo dadkii dhibaatadu soo gaadhay loo arko dad tuugsanaya ama dowrsanaya sharafteedu waxay ku jirtaa gaajo iyo haraad inaan ku joogno oo ama aan ku noolaano ama aan ku dhimano daawade marka haddaba dadkaasi tuuladaasi Suudaan waqooyigeeda ku taala caasimadda dhinaca Khartoum marka la barbar dhigo dadkeena Soomaaliyeed oo iyagu markasta ku hadaaqa soona bandhiga isla markaasina carabaaba oo markasta ay hadlayaan ku soo dara beesha caalamka iyo hay'adaha samafalku waa in naga soo gaaraan annagoo gaajo iyo haraad u dhimanay ayaad arkaysaa in dadka Suudaan ay gudnimadii gobonimo ay ka doorbideen iyadoo dadka Soomaaliyeed ay hay'adahaasi sawirro ka qaadaan dadka ganacsatada ah iyo kuwa samafalayaasha ee Soomaalida laftoodu in ay sawiraan hooyo Soomaaliyeed oo caagad saliida oo 3 latira la siinayo oo markaasi joornaal kasta iyo idaacad kasta ay sawirradii dib u soo qaataan